magaalada Muqdisho waxaa ka socda kulamo isdhaarsiya madaxweyne Farmaajo oo weli fila Soomaaliya jooga ayaa dhisaya tirar xoogan si uu sii joogo xafiiska. waxaa la filayaa in fila Soomaaliya isku arkaan madaxda maamulada taageersan madaxweyne Farmaajo oo kala ah Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay xubno ka joogi doonaan. xogaha ay saxaafaddu baahisay waxaa ka mid ah in dhammaan madaxda maamul goboleedyada ay u ordayaan kuraas sare oo ka tirsan dowladda dhexe. madaxweyne Farmaajo ayaa doonaya inuu fila Soomaaliya sii joogo. Cabdicasiis Laftagareen oo ah madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa isna quudareynaya inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka ee dowladda soo socota, halka madaxweyne Cabdi Kaariye Qoorqoor uu isna isha ku hayo xilka ra'iisul wasaaraha haddii uu soo saaro madaxweyne Farmaajo. sheekadan oo muddo dheer laga soo shaqeynayay waxaa ku lug leh Fahad Yaasiin oo mar kale doonaya inuu dhiso madaxweyne Farmaajo kadib 5 sano. madaxweynayaasha Qoorqoor iyo Laftagareen ayaa si weyn u taageersan madaxweyne Farmaajo, waxaana ay haystaan tiro xildhibaan oo ay ka soo saarteen deegaanadooda, laakiin dad badan ayaa isweydiinaya heerka uu gaari karo qorshayaashooda. ilawareedyo kale waxay sheegayaan in dhinacyadan muddada dheer isku garabsiinaya siyaasadda dalka ay dejinayaan qorshayaal kale kadib markii kuraas badan ay ku lumiyeen doorashooyinkii Muqdisho, Jubbaland, Puntland, halka sidoo kale ay aaminsan yihiin in Hirshabeelle ay ka heli karaan xubno aad u yar. ra'iisul wasaare Roble oo dagaal xooggan la galay madaxweyne Farmaajo ayaa quusgooyay hamigii fila Soomaaliya ahaa in xubno badan ay ku yeeshaan baarlamaanka ka imaanaya Somaliland. madaxweyne Farmaajo ayaa aaminsan inuu ku qasaaray dagaalkii uu kula jiray xafiiska ra'iisul wasaaraha. dhinaca kale, Fahad Yaasiin ayaa si adag ugu shaqeynaya sidii ay galaangal ugu yeelan lahaayeen doorashada Hirshabeelle ee xubnaha baarlamaanka. Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi Cabdiraxmaan Dheere oo gacanta midig ee madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa ku sugan magaalada Jowhar, isagoo doonaya inuu Cali Guudlaawe ku qanciyo 2 qodob. kan koobaad ayaa ah in kursiga Fahad Yaasiin uu xasaanada ku raadinayo loo wareejiyo magaalada Jowhar ama in doorashadiisa ay ka dhacdo magaalada Beledweyne, iyadoo Fahad Yaasiin uusan dalka ku sugnayn ama uusan magaalada Beledweyne imaaneyn kadib markii ay qalalaaso xoogan magaalada ka dhaceen. laakiin waxaa arrintaa ka jira culays aad u xoogan maadaama siyaasiyiin miisaan culus leh ay kursiga kula loolamayaan Fahad. qodobka labaad ayaa ah inuu u gacan geliyay liis magacyo oo ay fila Soomaaliya la doonayso inay ku soo baxaan baarlamaanka soo socda. hase ahaatee Cali Guudlaawe oo ay cadaadisyo badan ay ka haystaan siyaasiyiinta Hirshabeelle ka soo jeeda ayaa ku adkaysanaya inuusan kuraasta qaar sii karin fila Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa ayaa ku tashanaya xubnaha baarlamaan ee ka imaanaya Beledweyne kadib markii heshiis ay la galeen Generaal Xuud. dhinaca kale, fila Soomaaliya ayaa wada hadal kula jirta madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, iyagoo doonaya kuraas isdhaafsiya oo dhex mara Kismaayo iyo Garbaharey. Axmed Madoobe ayaa ku qasbanaaday inuu doorasho ku qabto magaalada caasimadda u ah gobolka Gado kadib tallaabadii Koonfur Galbeed, waxaana laga sugayaa in uu soo magacaabo gudoomiyaha caasimadda Garbaharey. wararku waxay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu doonayo in Axmed Madoobe uu kuraas kaga bedesho kursiga Cabdiraxmaan Dheere oo haatan maamulaya doorashada ka dhacaysa gobolka Gado. ilawareedyada aan helayno waxay sheegayaan in Axmed Madoobe uu ku dhow yahay inuu aqbalo dalabka fila Soomaaliya si kuraas ugu yeesho xubnaha ku soo baxaya baarlamaanka Garbaharey lagu dooranayo. si kastaba, siyaasiyiinta gobolka Gado ka soo jeeda ayaa si weyn u dhaliilsan qaabka ay fila Soomaaliya u wajahayso arrinta Gado, ayagoo aaminsan in Cabdiraxmaan Dheere iyo sidoo kale Axmed Madoobe aysan ahayn in gobolka Gado ay ku tartamaan. si kastaba, doorashada ayaa si xooliya u socota, musharaxiinta oo aad u fara badan darteed lama saadaali karo halka ay kala aadi doonaan xildhibaanada ilaa iyo hadda la doortay. waxaase la filayaa in doorashada lagu soo gabagabeeyo ilaa iyo 25 bishan oo muddadii loo aastay.